waaxda caafimaadka ayaa maanta kormeer ku tagay isbitaalka weyn ee Daynile kaasi oo ay ka socdaan qaliimo lagu sameynayo haweenka isku furanka qaba wajigiisii sagaalaad. Haweenka isbitaalkan Daynile qaliinka maanta loogu sameynayo ayaana waxay ka kala imaadeen miyiga fogfog ee gobolada dalka iyo gobolka Banaadir. intii aan ku sugnay isbitaalka Daynile waxaan la hadalnay qaar ka mid ah hooyooyinka qaliinka loogu sameeyay isla markaana ay xaaladoodu aad u soo hagaagayso kuwa oo sheegay in xanuunkan isku furanka uu ku dhacay curashadoodii koowaad waxaana haweenkan qaarkood ka yimaadeen miyiga fogfog. hadda ma sha Allah hadda fiican tahay hadda fiican meeqada halda sideeda marka dhasho asan ku dhacay waa lagu soo jiiday cunuga lagu soo jiiday منودي عنقاد ما هو إيجاز خير أنت كي ما تديني لو كده هذا مقالة دحية مسبادي بادي يران جلالقسي جلالقسي كي ما ديار ما لقصو صار مسجاري جاري مركي أو هل سنة كار أو سانكو بدي عيسى دكتور ما تكتمس استال كان كبورة يا دكتور استال كان كبورة إلا حلي أساس ما تجيني دكتور يجيني ما هذا حالة هذا في عنتها هذا ما شاء الله الحمد لله أنت ثلاثة أسبوع قبل مركي الوكيلة هي هذا كي عفمات كنتم هذا في عنتها ميقا سنة عدك لما سنة وقت جاس وقوب اللودي إلا هذا استال كان ديني لا إماتي واحد استال كلمتين وقت استال كلا تكتي ما حيكون يعني دايني بعد مية ما كلمة مس بعدين ما كلمة مس مقالة دحية بعدين استوى جوهر بديسة كمان جوهر بديسة kormeerka kadib waxa warbaahinta la hadlay xubin ka tirsan madaxda isbitaalka Daynile Xaaji Abubakar. isbitaalka sida aad ogtihiin baryahan oo horena aad uga socoteen waxa ka socday kambeeynkii sagaalaad ee cudurka usufuranka oo hadda ka horna laga fuliyay 8 kambeyn oo hore kuwaas oo dhamaantood noqdeen kuwa guuleystay wax cabasho ama soo noqdayna ay la jireen nasiib wanaag sidoo kale kii sagaalaad hadda socda sida aad indhiina ku aragteenna si xawli ah oo dardar leh oo habeen iyo maalin ah ayuu u socdaa kambeynkaas waa rajaynaynaa insha Allah taala dadaalada socda oo ku wajahan cirib